بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وولاشين نمع يا مرة لباد يا صدحات يا مركز طبع مرة إلهنا مكالك حيس خير قبتي وناق إلهي مكسو كذا تشوق نقوذ وارو مركزو تشوقتي ونسلامية خير بنور تشينية إلهي سبحانه وتعالى سعد يا قبتي يا وقت كتاجنتي بلانو بركي أنا وضع بركيو را لها شيس إله سبحانه وتعالى أي نقوم من نيستو كوي شاكرين حامدين إلهي سبحانه وتعالى نقدقو كو ذكر إلهي ريها بن عرب كوين إلهي نقدقو أخواتي أخواني ولا مشاركين ما وحن وذاقية مشاركة وذاق ويا لأن وذاقية إن شاء الله تعالى قصة horta inta badan qasaska markaan dhageysanayo dee waxaa saadatii ugu fiican horta anigaba aan u bogo way jir qaar badan walahi aan u bogay haddana marba aan soo dubin ama soo soomaaliyeenin laakiin tan waxaan ugu bogay laba arrin baa iga taabtay qasadan inuu sheegi doono insha allahu tacaala midda ugu weyn ugu muhiimsan waxa weeyaan waxaa qalbigayga soo galay mujtamaceena soomaaliyeed aad bay kamadaas ugu badatay walciyaadu billah allahuma najina ilaah magan galnay jin baa galay iyo jin baa ka hadlay iyo jin baa ayaa laga saaraya iyo quraan saarkii jin baa ka hadlay iyo waxaasa aad iyo aad mujtamaceena ugu badan waliba khaasatan dumarka lagu dhawo badan yahay xitaa dumar wadaada xitaa deeyin dad badan baa lagu oranayaa mataqaanaaye duro shaydaan baa taabatay walciyaadu billah inagoo muslimiin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa noo soo dejiyo oo aaminsannahay in ummadaha kale ilaahay nala abuuray inala mid yihiin oo jiraan oo jinku mataqaanaa qaar muslim qaar gaalab ay jiraan haddana waxaynu aaminsannahay sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu mataqaanaayey ducooyinka iyo adkaarta sabax wal masaa lagu ducaysanayo in mataqaanaa aad iyo aad in loo qiimeeyo ay waajib tahay waxaa diinteenu barasta mataqaanaayey in wax kasta bisinka laga qabsado oo bismillaahir rahmaanir rahiim cud bilashtaam rajim la iska yiraahdo inta waxa mataqaan actionka ay falka aad qaadanin dhibaato waxaan sidii markaas aan qisadan aan dhageysanay qalbigayga soo gashay oo ku jeclaystay inaan soo gudbiyo oo waxaan ka shaqo xisay talo ummadeena dadkeena dalkii jooga khaasatan inta badan lagu oranayo jimba galay jimba ku jira jimba ka hadlay talo mooxaasa ugu wacan de ma garanayo wallahi laakiin waan is iluun وإلى أركي دونتين لكن قصد حويان وحديث عن كسوة حديث كل حليه wax kasta شيطان كسكنار شيخ سمك قبل نسيت شيطان كسكنار يا أو ذكر إلهي قف كل وحكس كهر مريو يا أيال قفرية ما كدرت أنت بدأ أذكارته محسوستان حتى مخرب كوكل وحول قليه حلقة السعادة مخرب أي تهي يا عرورنا كسو حرية دبدها كسو حرية أو داقدها سكحرة أو حديث كسوها متقانة وحي إن أفكرها يد بولا أو يا إسكحرة مك الساعات كدب مخرب كدافته ayaa matqana la bixi waayo waxaan kaloo yiri xilligaas matqana jinkiya shaadintu ay soo baxaan duulayaan oo kala cararayaan marka qofkii way galay qofkii oo nugul oo adkaarka xusn xasiin ku jirin oo haduu doon way saqabin oo haduu dahaarad ahayn oo haduu meel xun iyo goob xun socdo jinku galay uu dardaray wal ciyaad billah jinku ku gaarsanaya ama shaydaanku ku gaarsanayaan marka qofku qoslo si xun hysteria matqan qosol dhaq bila macno xoog weyn uu galaya baa marka xoog si xun oo yo mataqaanay de qaylo weyn ku dhufta uu galaba lagu yiri ya marka xamaamiyada iimaalaha la iska daroodo ay badan tahay dhiigaga lagu qalay iyo xamaamiyada iyo maxaan ku raahdaa xashishada iyo uu jira shaydaanku ciyaad billah meelasha mataqaana xumaanta iyo fusuq lagu sameeyay muusiqa iyo heesa iyo dam iyo masaarka uu jooga ciyaad billah marka goobihii uu joogay oo qofkina xitaa iska ilaalinin oo xisn ku jirin uu u nugul yahay una galaya qaar baa lagu leeyahay inta soo family baa ku dhex jirta oo jina qaar baa laga yaabaa jinka ku jira muslimiin oo dhib badan u sii geysanin qaar baa laga yaabaa jinkaas inay yihiin qaar ayaga gaala ah oo mataqaanay kristan waxa laga yaabaa qaar inay yihiin qaar yahuuda waxa laga yaabaa qaar jinkaas inay yihiin qaar dhibayo oo kadeed iyo silci saxar u sameynaya marka akhwaani dhikriga ilaahi ala bi dhikri la tatma'innu alqulub adigoon ogeyn waxaan agtaada socday iyo ummada badan waxa disan ku soo qadaxtay qof gurigiisa galay inuu shaydaanka iska naaro haddii kala shaydaanku la soo galay ruuxii caaw hoy baan haystaa marka anagu waxa sooran aan ila fahayga lafinaba in ka digayo oo la walaalayaal oo is ilaalin oo dhikriga ilaahay markastaba carabka aan ku hayno bismillaahir rahmaanir rahiim bilashtaam rajim ya qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq maxay kaadis soo saddexda mucaawadaad ila akhrisanaya shaydaanka soo ma in laga magan galay sharkiisa iyo matqaanayay idibtiisa على كل حال حنا قصدنا بس كده قلنا إن شاء الله تعالى قصد وحي تاسدنا ودعضي نبى شري بالويلي وحي كان على المجال ده سعودي جازان دجانا هكذا كله كده عضي مدة يوسفون ويان مركا واحد عضي منها صدق سنة هرتد مية بس صدقناها صدق هرتد بين على شيء كاسة ودعضي على كل حال نبى جرس دي قبل هدو جرس دينا
إله أولاد موسينين markaasuu haddana ilaah ku roon yahay haddana gabarhka uu guursaday bal awlaad doon buu ahaa ninkii awlaad doon markuu ahaa gabadhii labaadna mudday wada joogeen macatii hore labadoodii buu wada qabay ilaahay awlaad muusiinin haddaba haddana mid saddexaad buu isku qaaday mid saddexaad buu guursaday tii saddexaadna mudda buu la joogay ayana ilaah wax muusiinin markaa ninkuu fikray wuxuu yidhi walaaladayow dumarkayga haweenkaygiyo anugu ma doonin inaan daalim noqdee intaasoo jeer nasiibkayga waan qaaday waxaan u malaynaya ciladu waa aniga ma dhalaysa waxba dhalaynine in ku xirnibi maayo nolosha tii doonaysa fasaxay fasaxo iska tagtoyno dee calaf iyo awlaad kala doonanaysa waan ku furaya tii kalena waa adiga dama taqaanay xuriyada uu siiyay ala kul xaal ikhtiyaar uu siiyay laba xilal nafar labadii buu furay mid baa u joogtay taasi waa gabadh waxa la sheegay ammaan loo soo koobay wanaageeda ixtiraamkeeda sida ay ahayd qof dee waxa lagu horto ilaahay quruxna ku manaystay edab iyo akhlaaqna kaale arag waxaan ku yidhi yacni laga ammaan sheegto si ninkaa ugu samartay si dhowr sannadood bay wada noolaayeen ilaahay wax awlaada muusinin sidii bay u joogeen sidiiba dadku lagu xaman jira alla hebel iyo heblaaya say isku jecel yihiin alla heblaaya say ninkeeda u tahay addoonka loo jeeda haddaa sida heblaaya kala noqotiin la waxa la wado ilaahay subxaana watacaala soo arxam arraaximiin maaha heblaaya wanaagsana heblaaya deeqsana heblaaya si hebel uga shooka sii loo lahaa ilaahayga kariimka deeqsiga ana يا بني آدم كويس إنه كدق سنة هذا لها ما تعلي سجى كدق سنة وحقوق قدر إنه قبل حامل نقطه وقت جاء لحدا شربوني كياه أيضا أفرتن شربتاي وتاصو إلهي سبحانه وتعالى أورك ولما يستوحى الشيء إنان قروحضة اللي يا بيبو كونك شيكاني وحي قروحضة والله يا بنان تاس ما شاء الله تبارك الله إنانتي أي أضيقي إسلانتي بكو فرحين أو إلهي المعاديس ما شاء الله تبارك الله إلهي عوض خير قبول نسيي أو إنانتي اللبرباريي أو إنانتي كال أرقى دحنا تشمل قف المير قروء يغني إنتا صوص النضوض دي لما فلان نبي إبراهيم يسار وكلام نقدنو يا markii dambe ilaahay siiye matqaanay awlaad oo kale ayaa maxaa dhacday inantii baa weynaatay inantii baa gashaantii noqotay inantii waa dad baa soo doonay inantii la guursaday qof kasta ku damcay ku hungooday inantii waxay tinno ma jirto aabaha iyo hooyaday oo waayeela mustaxiil inaan ka guursado inantii aabaha iyo hooyaday intaas sano ay sugayeen in ilaahay awlaad siiyo maanta ay maceen u noqotay oo garab u noqotay oo umar oo u karisa oo u shaqaysa wax kasta u samaysta ayaga reerkiiba ma sha Allah tabarakallah sheekadii aan ku dheeraynayna inantii 18 jir ma ka ahayd maalin kasta marka fiidka maghribka oo kala tahay salaada maghrib horteed iyo dabadeedba ay galgalinka casarka horteed bay taagtay soo nadiifisaa daarada oo soo matqaanaayay iska soo hagaajisaa maalinta waqtigeedii dib uga dhacday waxay tagtay markii salaadii maghrib abeed u baxay bay kacday waxay tiri soo meeshii soo nadiif soo daaradii soo xaadxaad oo soo tirtiro soo hagaaji way soo noqotay oo soo nadiifisay oo soo noqotay inantiiba habeenkii ay horta caafimaad ugu dambeeyay bahal xumad la yiraa ay lagu soo tuuray xumad karka inanta maxay inanta xunuunsanaysa shidaanka naar maxay siiya dawadan eega dawa xumad jabis eega inanta xunuunkii maba ka jabayo xumadii kama jabasaba way socotay dhowr beri haddana ayaam haddana asaabiic dhakhtar kasta la geeyay magaaladoodii jeezaan waa lagu meeraystay dhakhtar kasta la geeyay waxa la dhiigay baa laga qaaday sheebara la mariyaa waxba ma qabto sidii waxba qabsato inanta xunuunsanaysa xumadan waa maxay ma waxba ma qabto haddana waa laga soo noqday haddana muddo la jooga haddana dawada waxa la siinaya uun xumada jabinaysa inanta xumada marba cirka isku shareerta marba xumadi تعبان ولا سر فاضي إنتي أضيق وقلبي إسلانتي وقلبتي إن أنت هذا كله هيد وأنت الصنع إلهي سبحانه وتعالى كذب سي أو ما أنت أيضا هيد إن لا ينور يوم حكستوا هيد سبحان الله وحكستوا حلو قبتان بير ولا كوح مهيان الاخترضي ولا نين ولا كي أو إن أنت هذا أي يمدورالو وان أركا كربدا كسارا لباهتنا كسارا وان أركا إن أنت نو إن أنت يدي محاج عشان حن كل قبلنا إن أنت وحيل ملاها الدبيب كذا كان ما هي دبدها نجيو هاي بيل ولا وكلك حيلا أنت خرج شو خسف من الجوال سكو دردري أضيقي والك حي إن أنت دبدها لجاي اختروا في عنابة لجاي ولا باري إن أنت اختروا حيل هذا وح النتيجة دي كلها رشاقان بشاقان وح أروح يقبطه أو شركة هذا اسمه شرته هاو كم صوت من السنة حنوصل سماسيت أسكود على صو ما لقرن محمد حقوق على مكرني ولا سوء علي على كل حال أنت نسكع إيش ذا بالقولي ولا سوء علي وضن كبر سوء علي إن أنت السدي بالودي هدنا محمد السيلون بيت إن أنت وسيق والتوسيل اللي بدأ إن أنت أذيك مكدم سبحان الله حب قلبك سكوري وما هو القرآن كدينه
dadka inta badan marka dambe loo cararaa subxaan allah markaa bala kasoo soo gara calaa kulli xaal nin sheekha oo layidhi raaqi quraan ruqya buu sameeya ayuu ula tegey ninkiiba ballan loo sameeyey wuxuu yidhi isuga dadkanba iga dhammaadaan dadkii ka dhammaadeen buu inantii quraan u fadhiistay 2 saacadood oo gow quraan ku akhriyay 2 saacadood inantii marnaba dax waxbaba dadkan jinka saaran yahay waxa warkaa wadama taqaanay isbedel baa laga dareemayo way suuxaan way qayliyaan waxba ma jirto inantii wuxuu yidhi bal haddana igu soo celiyo dhowr muddo ma ku waday ay mar dambe oo dee lagu baraaray ayuu jin ka dhex hadlay inantii walciyaadu billah wuu ka dhex hadlay wuxuu yidhi waxaan ahay boqorada jinka abaan ahay inankaygii bay dishay inankaygii bay kow ka siisay yaa ana kama baxayo war ka bax war maad ka bax war quraan baa lagu akhriya ka bax kama baxay buu yidhi inankaaga see u dishay waxay u dishay markii daaradda xaadhisay ee meeshii nadiifinaysay kiis ama kiish se loo yaqaano oo wax ku jiraan oo meesha ayuu shoo halkaasuu jiifay nacam maan aragna inagu maan aragna qurumadan ma aragno walciyaadu billaah jinkii ay bahalka qaaday shoo ku dhufatay may arkaynin wuu ku dhintay markaa argoosi ayuu inantan ugu jiraa kamana baxay inankaygii beebi dishay buu taaganya markiiba hadal ugu dambeysay jinkii mar dambe shibtu gale si kastoo quraan loogu akhriyo si kastoo inantii lagu tacaalo uu ka bixi waayey walciyaadu billaah inantii odayga wuxuu dee si kastoo lagu day quraan sidii baa lagu soo celiyey xumadii dawo xumadii jabis maalin kamada xumadii waxay wado inantii kow way u dhimatay xumadii baa cirka isku sharartay habeen da ajal allah weeyaan kul ajalin kitaab waqti ka dhamaaday laakiin way dhimatay naxadantii murugadii iyo qulubkii qulbeen aabaheed ayaama kadib asna uu dhintay abuusii joogay wax badan odaygana uu dhintay subxaan allah hooyadii wanaagsanayd intaasoo dhan subxaan allah yani subxaan allah maqaadirta ilaah waa yaa wax badan buu ilaahay haya ilaahayna badbaadiye waxaa la yidhi islaantii imika mana noola mana dhimanin maskaxdii waa isku dhufatay waa isku daadatay yacni qof maskaxdii maqan weeya shookii ku dhacay subxaan allah walciyaadu billah reer dhan oo camirna ayaa baaba'ay farxad yar reereen cawadkii ilaahay siiyey subxaan allah waa waxaa la leeyahy walaaladayo naftii waxaan ku dardaaraya oo awlaadan baran oo lafeen u sheegana dikr allah ka bixina guryaha bilaa dikirka ilaahay isku xijaaba anu waxaa leeyahay dadkeenan laleeyahy jin baa ka buuxa adkaarta marka hore hadduu galo soo ka baxa dhito wadaada sax oo si fiican uga saara mooyaane way adag tahay marka hore ilaahay waqaayo khayr min cilaaj baa isbaadbaadada horaa dhaanta dabiibka dambe ilaahay ina badbaadiyo ilaah baan ka magan galana ummadaha iyo qurumaha inala nool ilaahay sharkooda ay naga xijaabo qaar badan baa lagu leeyahay way yani sabab ilaah uga dhigay awood ma laha ayagu laakiin waa sabab maadaama lagu leeyahay haddaad wax daadinaysid haddaad xitaa xasharo dilaysid xayawaan haddaad dilaysid bismillaah dheh acuudu billahi shaytaan rajiim dheh goos waad u digta markaas hadduu yahay kaa dhaqaaqay uu kaa tegaya jinka hadduu yahay laakiin waxaana dilaysid xitaa dadka maashan yaree maxaa la yidhahdaa guley malaya bahasha masoo kale waxaa la yidhahdaa caasha barida bahashaasoo kale dadku hadday dilaan waa wasaqada weyn wasaqa la yidhaha guryaha qadiimka inta badan ku badan tahay oo markaaba dabada xitaa dib soo baxda haddii qofku markuu dilo wuxuu ajib qof kule nabiga laakiin shaydaanka iska naar gu leeyahy wax kasta shaydaanka iska naar marka akhwaani lafeen inu baqano aynu ummadan kale inala degan inagoon wisus qaadaynin oo shakis gelinaynin laakiin haddana waxa weeyaan dikriga ilaahay afkiina ku hayo weyse la-aan abixina adkaartiinana xafdiya adkaartana ku baxa watawakkal cala allah nicma billah waxna ku heli maan markaas biidnillah taala ilahay baa shar kasta kaa xijaabaya qofka ilahay baa maciisa biidnillah taala haddaad ilahay moogan tahay ood ilowsan tahay dee walciyaadu billah way kuleysanayaane ilahay baan ka magan galanaa waa taa qisadeedii caawa insha allahu tacala waxaan jeclaan haddaad soo sheergaraysiin dadka u digtiin dad badan baa waxaasi ka moogan oo ama dhayarsanaya ama fududaysanaya dad ba xitaa biyo saydhiya baa lagu yidhi biyo waxaan xustaa sheeko beri hore aabay allah yarxam iga sheekeeyey carabada wuxuu yidhi soomaaliya hargeysa waxaa jiray nin maxaan ku dhahdaayey hodheelka shaqaynayey biyo kulul buu bayii baastada oo karkaribu saa u saydhiyay dibadda bisad meesha taale ay ku daadatay waaday qaylisay isla markiiba sakankiiba isa saasuu soo kogay ya marka waxa weeyaan waxaad dur isbaysaa ma ogid waxaad ku shubaysid waxaad dilaysid waxaad daadinaysid ma ogid waxa meesha joogay shaydaanka iska naar wax ka soo qada bismillaah raxmaan raxiim cuud bilashtaan rajiim wabillahi tawfiiq waxaan khalday waa nafteeda shaydaan waxaan saxanay ilaahay tawfiiqiisa waxaan rajeynayna soo gaadhay farintaydu توكل على الله ونعم بالله وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده استغفرك اللهم واتوب اليك استشهد قرايه فضلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.